asalaamu calaykum muuqaalkan waxaan ku eegi doonaa saa uga faa'iidaysan lahay airdropkan oo saa aragti lagu maalgeliyay 18 milyan maalgelisay Dragonfly XYZ wax walba talaaban kula dulmari doonaa si airdropka aad u heli lahayd saa siga diiwaangelin lahayd iyo waxyaalaha kale oo baahantay inaad ogaatin ku socda channel fadlan subscribe ku dhufan bananka cas xagga soo yaala gambalkan furanaysa ogaati mar walba iskaal muuqaal soo geliyo kala helmaan muuqaalkeena leegta ku dhufan sulka xagga soo yaala korjeeda si muuqaalka asxaabada si gaar ah looga faa'iidaysan karo ana si wadaag asxaabtaada oo isticmaala social media kala duwan airdropka maanta waxaa loo yaqaanaa down or decentralized broadband and reward for sharing your internet infrastructure shaqadoodu waxay qabanayaan oo u soo baxeen waa sidii garaaska oo kale inaad hadhow ku tusi doonaa saad airdrop ku heli lahayd laakiin waxay isticmaali doonaan footstepskii garaaska waxayna kuu siinayaan pointiska ama airdropka inaad la wadaagto internetka qaybta isticmaal iyagoo dhisaya internet aan xaddi lahayn tusaale internetka caadiga hadda xarumuu leeyahay oo internetka magaaladaada kugu xidhan oo kale muxuu leeyahay xarun la tago oo kale kan waxay rabaan loo decentralized internet aan xarun lahayn oo dadka adigoo kale ah kicinayaan kawa airdrop aad hay u ah marka la eego garaaskii oo siduu looga faa'iidaysteen eegno airdropkan lama miskarayn karo oo chancekiisu aad buu u sarreeya inuu noqdo mid garaaskii ka fiican ama kaba sarreeya oo u tegi doonaa saas ka diiwaangelin lahayd iyo waxaa u baahan tahay laakiin haddaynu hoos soconno oo balsi eegno xogtooda what's down waa maxay ku sheegaysaan kuusoo sheega waa decentralized wireless network for delivery internet service shaqadooda waa inay sameeyaan internet aan xarun lahayn oo wireless ah usb wax loo yaqaano iyagoo isticmaalaya dadka adigoo kale ah say uga dhigaan decentralized oo mid meel lagu soo hagaaga aan lahayn oo dhibaatada jirta haddeer waxaa weye internetka caadiga leeyahay xarumo haddii la rabo in la xidho oo kale ama la joojiyo oo kale toos loo tegaya kadibna internetka waa la xidhi karaa oo internetkii waa internet haddeer governmentiga ama dowladuhu gacanta ku hayaan laakiin kan decentralizedka wuxuu ogolaanayaa in aanu noqdo mid decentralizedka sida cripto ah kadibna cidna maamuli karin haddeer criptada lacagta cidna ma maamuli karto kastoo haddeer regulation wax badan jiraan sidii hore ahayn introducing dom validators oo waa meesha adigu saa u shaqeynaysid dom validator waxaa ti validator oo kale xogtiin adig ku dhex marto oo kale helsa rewards in adoo ka qayb qaadanaya down networkska proof of bandwidth validator adigoo oo ogolaanayna computerkaaga dhex maro oo kale bandwidth validator wax loo yaqaano oo bandwidthka in la eego ama binka wax la dhaho la eego oo serverka ku xidhan oo kale xawaaris intuu maraya oo kale intuu latency oo kale la eego shaqada qabanaysa hadda waa kaa refer your friend saxaabta ku saacadsumi kartaa saa u joogtay si network proof of coverage si meelo badan oo cover badan u gaadho saxaabtada ku saacadsumi karta marka waxaa laga rabaa stepka kuwaad downloadna la soo degtid akoonka samaystid kadibna aad rewardska saa ku heshay marka balan ku tuso sida loo halkan markaa ku dhufto walax ku soo baxayo balan ku dhufto oo kale anigu horaan ba isaga diiwaangeliyey oo extensionka ula soo degay marka balan ku dhuftay down validator from extension ku dhufansaan ku qortay get laakiin remove ay soo baxaysaa oo horaan ugu duubtay tusaale kale daan browserkii kale ee isticmaalo loo yaqaano Brave oo kale hoos socdo imaado download down validator extension markaa ku dhufatid stepska bal kula dulmaro kadibna saan oo kale ku soo bixi doonta ku dhufanaysa add to Brave ama add to Chrome kadib wax ku dhufanaysa add extension kadib waqti yar oo kooban sa arti download xaggan uu soo galay markuu dhamaado waqti badan qaadmay waa 13 megabyte maanta kalena waa ka dhameeyayba kadib halkan uu ku soo gali doonaa extensionska kadibna waa kan soo galay Chrome extensionkii oo halkan waa inaan soo furaa iconka yarka ah kadibna musbaarkan ku dhuftaa down validator ku xiga su'aalkan igu soo galo mar walba arko ku dulfanaya kadib halkan markaad timaado waxa u baahan tahay in akoonka samaysto wax ku dhufaysa continue kadib waxaad gelinaysaa emailkaaga iyo passwordkaaga emailka passwordka markaa gelisid waxa ku dhufanaysaa halkan login hadda akoonka lahayd laakiin wax ku dhufana register si akoon iska sameyno waxa muhiimka waxa weeye inaad magacaaga gelisid emailkaaga gelisid passwordkaaga gelisid sidoo kale passwordka marka la gelisid referralka waa very important referralka qaybtooda description aan dhigi doonaa ama haddaan ku laabto halkan waan idin siiyaaba halkan referralkaygu oo iskama diiwaangelin karta haddaan referral lahayn kadib waxaan ku dhufanaya boost rewards halkan kadib waxaan koobi garanaya referralka waa kan copied clipboard waxaan ugu soo laabanayaa Brave kadibna halkan waxaan ku paste garanayaa referralkii markaa referralkii wax ku ogolaan iska diiwaangelisid mar walba adigu asxaabta kusoo xidhaysid referralkaaga u koobi garaya u dir isaga diiwaangeliyaan halkan waxaan gelinayaa tusaan oo kale abdi oo kale la dulmaro kadib emailka halkan laba jeer geli halkan password adag waa inuu noqdaa xarfi waaweyn xarfi yar isugu jira kadib markaad dhamaystirtid wuxuu kuu soo diri doonaa confirmation code oo confirmation codeka emailka kuu soo diri doonaa halkan confirmation code kuu soo diri doonaa aniga ii soo diray halkan waxaad ku dhufanaysaa click to verify haddii aan verify garayn pointiska loogu talagalay ma helisid sidoo kale waxaad noqon doontaa pending marka si aad uga faa'iidaysid goor uga faa'iidaystid airdropkan aad wax fiican uga hesho haddana wuxuu marayaa sa artidba network quality wax ku tusaya marba networkaaga intuu maraya qualitygiisu
halkan total earning wuxuu kugu tusayaa marba inta guud ahaanaad haysatid ani 1300 oo points baan haystaa hadeer waxyaaluhu kaga fiican yahay garaasna waxaa ka mid ah in 80% ay helayaan validatorysku oo dadka adigoo kale aad dib loogu celinayo marka waxaa laga yaabaa intan oo kale badankeedaan anigu helo markuu soo baxo tokenkooda marka waxaa muhiim ah emailka inaad verify garisid oo waxaad tegaysaa emailkaaga inboxka ku dhufarta isku diiwaangelisid markaa kadib emailka isku diiwaangelisid markaad ku dhufarta click to verify si aad soo hubisid oo soo cadeysid markaad verify garisidna aad wuxuu kugu bilaabi doonaa points halka artid 1400 waan ugu haystaa network quality waan ka soo baxaya 40% baan aniga ahaa marka down waad si akhrisan kartaa partners kaadir company waaweyn baa halkan ku jira oo kale Dragonfly oo kale EV oo kale marka waad si akhrisan kartaa sidoo kale markaad saa u soo furtid website-kooda waxa kuu soo bixi doona download-ka documentiga ama white papers-kooda akhriso marka white papers-kooda waa kan decentralized atomic wireless network oo loo yaqaan waad si akhrisan kartaa tusaale network overview nodeska noocyadooda kala duwan halkan aad si ay kartaa oo arki kartaa waxyaalaha end user distribution userka and with nodeka foundation marka waa noocyada kala duwan ee aad arkan ka aragtid proof of location si akhriso waqti fiican ku sii bixi si wacan white paperka u fahan wax badan uga fahantid aniga laftirka muuqaal follow baan kasoo samayn doonaa oo aan kaga sahal doono laakiin waxa muhiimka hadir waxa weeye balina pointska waxaan u baahannahay waa airdropka na pointska bal si gashid oo ka faa'iideystid asxaabtaadan ku sacasuntid halka ka artay extension badan ba halkan igu duuban oo qaar ma aha airdropska kale kuwan oo kale ma aha laakiin garaaska oo kale guarantee oo kale nodebay oo kale saa ka artay halkan guarantee oo kale waxaa jirta unsupported su'aalka hadda Soomaaliya joogtid oo guarantee ku shaqeynay qaybta hoose commentiga ku soo qor oo kale sidoo kugu shaqeeyay network qaar buu ku shaqeynayna oo kale hadda su'aalka hormuud isticmaalayso oo kale golis isticmaalayso networks kala duwan bal kuwa haddii ku shaqeeyay guarantee oo kale qaybta hoose commentiga ku soo qor haddii uusan ku shaqeyn xal baan soo wada haddii aan leedmo oo kugu shaqeyn doono telegramka igala soo xiriiri kartaa haddii ku shaqeyn su'aal oo kale halkan oo kale saarta unsupported laakiin haddaan tago halkan oo kale saarta 5.86 baan helay points sababtan ku helna saddex network oo kala duwan baa tijaabiyaa dirsa aragtidba oo waxaan wada testing oo si ay u shaqeeyaan maadaama Soomaaliya unavailable uu soo qoray oo unsupported ka aragtidba halkiisan insha Allah waa soo wadaa muuqaalkan ama muuqaalada soo socda oo ku soo bandhigi doonaa saad u gali lahaydeen sagana uga faa'iideysan lahayd maadaama badankoodu aan Soomaaliya joogo badankiina ila mid baa tihiin idma shaqeyn kale waxaa xusid badan nodebay oo kale isaguna waa ka garaas ugu soo dhow ilaa hadda 7 extension baa ku jira sida garaaska oo kale ah 7 extension ba chance-kooda waan qaadanay maadaama bilaash yihiin oo kale hadhowna marka sida garaas oo kale soo baxaan waa ka faa'iideysanaya haddii points fiican ama tokenkooda qiimo fiican lagu dhufto laakiin dadka badankooda markaan ka egtidba bending dadka tusaale oo kale iska diiwaan geliya oo aan referralka isticmaalo oo kale saa ka arti waa 9 bending oo 10 ka mid ah verify gareeyeen taa macnaheedu waxa weeye akoonkaaga haddii aadan emailkaaga verify gareen waxba kama helisid oo wuxuu noqon doonaa mid halkaa ku gubto oo pointskaaga iyo juhdigaagaba halkaa ku khasaarin marka waxaa muhiim oo kale markaas diiwaan gelisid emailkaaga verify garee maalin walbana soo booq halkan daily treasure claim maalin 100 points baa ka helisaa oo aad claim gareysanaysaa waad ka faa'iideysan kartaa laakiin haddii aadan soo booqan oo kale 100ka maalin buu waawaysaa hubina mar walba hubi inuu nodekaas wacan u socdo background ka shaqeynaya in kale halkan imaanaya taano kala kan connected sa artid ba hadeer hal device ba igu xidha aniga oo 98% weeye network quality maanta 29.82 bay ii heshay boqol ka mida waa boqolkan claim garaystay oo waa kan 128 guud ahaan muuqaalka soo afbeerayaan ka hadlaysa uga faa'iideysan lahayd networkan cusub ama airdropkan cusub ee loo yaqaano down decentralized broadband-ka kuna duubay extension-ka oo sa artay extension-kan ugu shaqeynaya adigana waa ku sii ugu duuban lahayd weli dashboard ma leh oo dashboard si garaaskii oo kale ma leh aad ka geli kartid oo ka eegi kartid soo kale nodebay oo kale sidoo kale ah laakiin extension-ka waa muhiim inaad ku duubtid haddii aad mobile isticmaalayso waxaan kula talinayaa daawatid muuqaalka aan soo dhigi doono description-ka waan ka hadlaysaa garaas iyo nodebay ugu duubi lahayd waxa loo yaqaano Mrs Browser adoo Android-kaaga isticmaalaya mobile-kaaga Mrs Browser waxay ku ogolaanaysaa in extension ku duubtid Android browser-ka kadibna saa uga muuqaalka xigta kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.